muddooyinkii u dambeeyay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ee deegaano badan oo hoos yimaada waxaa ka daayay raxmaadkii Eebbe oo inta badan ka daayay deegaano badan oo Soomaalidu degto. roobkan ka daayay magaalada Buuhoodle ayaa saameyn ballaaran u geystay dadka barakacayaasha ah ee ka soo barakacay koonfurta dalka Soomaaliya isla markaana ku sugan magaalada Buuhoodle ee degan guryaha cooshadaha ah. barakacayaashan oo aanu booqanay ayaa waxay noo sheegeen ay saameyn ballaaran u geysteen raxmaadka Eebbe waxayna sheegeen inay dhibaato xoogan kala kulmeen jiifka maadaama ay ku jiraan guryo cooshada isla markaana ay ka qoyeen dhammaanba agabkii ay ku jiifan jireen. dhinaca kale waxay walaalaha islaamka ee jecel khayrka ka codsadeen inay gurmad degdeg ah u fidiyaan isla markaana ay aad ugu jilicsan yihiin la soo gaarsiiyo bacaha roobka loo isticmaalayo waliba qabtayo badarka naftiisa waa rabnaa saliid waa rabnaa sokorta waa rabnaa dhibaataanta nagu haysa bayaal waa rabnaa roobku ka warantay wiilkiisa roobka awada waa ku bari gal waayni oo biyaan ku dhex jirnaa iyaalkayna biya laga bixi anaga dharkayna saahadaad aragtiin wad yaabaysiin walaalayaal hadaad wax noo anfayaysiin wax noo anfaa maanta aad noo gaysatay biya halay meel aan ka saahanaan waynay wuxushkaas deganahay bayaal ma haysano meel aan ka saahanayna mala awal dhulka saahanayna dhulkiin halay daad baan qaaday korna roobka ka soo daa hoosna daadkii marka dhibaatadaas roob kale noo geystay maxaad ugu baaqaysaa marka dadka halka daawanaya dadka halka ugu naga daawaha ugu baaqayna in dhibaatada ma haysato baraka awal bilaad barkaad magaalada Buuhoodle dadka jooga waxa codsanayna intaan caawiyaan oo raashin siiyaan oo ilmaha naga gaajaysan waa ardayna aruurtayna wax barasho ma haysato wadankan waa iska joognaa shaqadeena shaqada banoo diiday aruurtayna dhide marka walaalaha maana waxa doonaynaa intaan aan caawiyo raashin siiyo wax walba siiyo wixii tabartiina anagu caawisaa ma doonayna waana kuwan dadkaasi oo ka hadlaya roobkan ayaa muddooyinkii u dambeeyay si xawli uga daayay inta badan deegaanada Soomaalidu degto gaar ahaan gobolka Cayn. Cabdicasiis Aadan Jaamac TV-ga caalamiga ee Kalsan Buuhoodle.